xalxalise gaashaamo biyo dhigay. halkani waa cisbitaalka guud ee degmada Gaashaamo oo in dhaweydba dhismihiisu socday isla markaana ku dhadhow imika 95% gabagabo. cisbitaalkan ayaa mas'uuliyiinta gacanta ku haysa waxay noo sheegtay inuu cisbitaalku imika gabagabo ku dhow yahay isla markaana ay soo socdaan qalabkiisii oo dhameystiran. cisbitaalkan ayaa loo qalabayn doonaa sida ay mas'uuliyiintu noo sheegeen hab casri ah isla markaana laga maarmayo in deegaano kale loo tago dhakhtar. halkan aad arkaysaan waa barxadda hore ee loogu talagalay inay ku nastaan dadka bukaanka iyo dadka u imanaya soo booqanaya si ay ugu sheekaystaan. haddii aynu hore u soconno oo qaybaha cisbitaalka soo eegno waxaynu aadaynaa wadadan dheer ayna dhex qaadsiinaysa cisbitaalka intii aynu ka gaari doono. labadan dhinac waxaa imika inaga haya maqsino aada u tiro badan oo ah kuwii bukaanada loogu talagalay dhankan iyo dhankaaba markaad eegto iyadana sida idiin muuqata. hore haddaynu u soconno waxaynu gelaynaa maqsino kale iyo qaybo kale oo iyaguna hareeraha inaga haya imika oo aynu dhex marayno inagoo dibadda uga bixi doona oo hoolba hool inoo dhiibi doono. qaybtani waa qayb kale oo ka mid ah iyaduna dhanka markaad eegto waxaa sii jira maqsino aada u tiro badan oo ilaa halkaasa. dhanka kale haddaad eegto waxaa jira iyadana maqsino aada u fara badan oo iyaguna halkaa kasii muuqda. sidoo kale waxaa halkan ka muuqata in bukaanka qof waliba oo hor fadhiisan kara maqsinkiisa markuu doonayo inuu yaro nafisu leydh qaato isla markaana dhirta iyo shimbiraha dhawaqooda uu halkaasi kala socon doono. halkan dhinacan kale waxaad aragtaan in iyadana maqsino badan naga qabanayaan siday noo sheegeen mas'uuliyiintu. halkan waxaa ku yaala 6 maqsin oo waaweyn oo loogu talagalay kuwa qaliinada guud lagu sameyn doono maadaama cisbitaalku qaliin kasta oo ka soconaya sameyn doono. dhanka kale waxaad arkaysaan xafiisyo ayaa iyaguna ku yaala aad arkaysaan oo miraayada oo qaybaha loogu talagalay inay dhakhaatiirta iyo neerastu ay ku shaqeeyaan. hore haddaynu u soconno dhanka waxay naga haya iyadana hoolal kale oo magaranaysa loogu talagalay iyagana waa dhara. sidoo kale dhankan aad arkaysaan maqsino fara badan ayaa ku yaala oo maadaama ay aada u durugsan aynaan gaari karin balse guud ahaan aynu halkaa ka arki karno. waxaynu soconnaa weli xagga dambe ee dhakhtarka oo aanu doonayno inaanu gaadhno. dhakhtarka ayaa ku qalabaysan xagga biyaha iyo xagga leydhkaba biyo loogu talagalay oo ku filan. dhankan waxaad arkaysaan iyadana in qolal kale ay ku yaalaan. sidoo kale dhanka kale markaad eegto qolal kale fara badan baa ku yaala. hore haddaynu soconno guud ahaan cisbitaalku waa 120 maqsin sida ay sheegeen oo qaadi kara 400 oo bukaan. mas'uuliyiinta cisbitaalku hore haddaynu halkan u soconno halkan waxaa ku yaala iyadana qolal kale oo aad arkaysaan. waxaynu tegaynaa barxadda ugu dambeysa ee dhakhtarku uu leeyahay ayaynu dibadda uga baxaynaa. sidaad aragtaan dibadda ayaynu imika u soo baxnay. halkaa waxay naga qabanaya qaybo ka mid a iyaguna dhismayaalka dhakhtarka oo iyaguna qolaallo ay ku yaalaan. dhanka taangiyo biyo ayaa saaran. dhankan kale markaad eegto wadooyin jidad yaryar oo dadka bukaanka marayaan oo loogu talagalay inay ku lugeeyaan baa iyaguna ku yaala. waxaad arkaysaa in cisbitaalkan uu ku filnaan doono dhammaan deegaanada Soomaalida iyo deegaanada Soomaalida la jaarkaaba sida Soomaaliya.